بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم sida arkaysan xarunta guud ee dahabshiil Denmark oo ku taala faqad isboo way wadada la yiraahdo oo maro baska 66 waxa ay ka soo horjeedaa kaalintii sheel ahaan jirtay hadda isu bedeshay Circle K hadaba sida arkaysan waxay kuugu baaqayaan dahabshiil Denmark xarunta guud soo dhaweyn iyo gacmo furan iyagoo ku soo kordhiyay kaalasha dahabka barnaamijka la yiraahdo oo ah sida markii baad ku helayso markaad u dirayso faamiyadaada lacagta hadii alla hawoodo ogolaado sida aad arkayso wadadani waa waxa weeye faqad Spotify number 48 waxa ay ka soo horjeedaan aslan ku sheegay kaalintaasi hadaba barnaamijkan markaad daawato waxaad kala kulmaysaa gudaha aad ka helaysaa telefoonadii iyo xiriirkii email-adii dhamaan baasda halka ka muuqata xaqiiqda hadda waxaan u soo galnay xafiiska gudihii waxa weeye waa xaruntii guud sidaad arkayso السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله. بس تديروا. sida arkaysa waxa aan gudaha ugu jirnaa waxa weeye waa xarunta gudaheedii halkaasna waxaa soo fadhiya cali warsame waad aragtaan shaqadii ku jira oo ka mid ah maamulka guud iyo madaxda xarunta dahabshiil Denmark halkanna waxaa fadhiya aan usoo galay hadda waxa weeye gudida maamulka guud ee xarunta dahabshiil Denmark iyo magaalada Copenhagen wadada ay ku taalo faqad Spotify number 48 ama 48 Muuse Faarax Jaamac ku soo dhawow waxsan sheeg news macluumaadka iyo waxqabadkiina xaruntan Denmark ee dahabshiil ee magaalada Copenhagen waxaa naga siisaa faahfaahin waraysi yar oo kooban marka hore sad waa maasantahay Sidiiq iyo waxsan sheeg buu waan ka mahad celinaya marka labaad dahabshiil Denmark wuxuu muddo sharci ku shaqeynayay ilaa 2002 intii ka horeysayna wuxuu shaqeynaysay xawaalada u shaqeeyaan intaa wuxuu register ka ahaa dhammaan hay'adaha dawliga ah wada shaqeyn wanaagsan oo naga dhaxaysa bangiyada iyo dawladda iyo hay'adaha sharciga oo dhan ilaahay baan u mahad celinaynaa waxaan dahabshiil hadda sidiisa adoogteen soo kordhiyay dahab waxa la yiraahdo oo u dhigma lacagaha mobile pay waxa la yiraahdo taasoo inta xawli ku socota customer-kayga waxaan ku dhiirigelinaynaa inay weydiiyaan dadka ay lacagta u diraan in ay leeyihiin mobile pay in ay leeyihiin dahab way u fududaanaysaa in markii marka lacagta aan ugu shubnaa waan customer-kaygana aad baan ugu mahad celinaynaa aad baan ugu mahad celinaa idinkana ay qolada media waa ku mahadsantihiin warayskiina aad iyo aad baad mahadsan tahay Muuse Faarax ka waran dahabka waxaa laga helayaa miya xarumaha ama meelaha ay xafiisyadu ku yaalaan dadka boqolkiiba 80 markaan anagu wadanka tago way qof walba leeyahay waana active gareynay hadduu qofku la hadlo ku yiraahdo dahab ma leedahay uu u sheegay inuu leeyahay wana garanaya meelaha laga helo dhammaan xarumaha dahabshiil waa laga helaa xarumaha Somtel waa laga helaa hadday noqoto Puntland hadday noqoto South Somalia oo dhan hadday noqoto Somaliland inta waa diyaar wuxuu tagayaa xarumaha dahabshiil wuxuuna yahay la ifuro dahab ama Somtel meesha ku taalo sim card oo la siinaya dabadeedna automatic baa loogu furaya markiiba dadkuna inta badan way leeyihiin inta loo bixiyo anigu Somaliland waliba inta lagu qof walba lacagtu waxay u dhacaysaa soo gurigiisa jooga marka xafiis baa xiran iyo waa laga rawaxiyo waa jimc iyo xamale si toos ah u dhacaysaa بس واحنا ماشي رقم ما نتحس إنه ماشي رقم كده كمان يسكر يا العكس. ما شاء الله عاد بين كل برنامج كاسو وفرح الجنين دونا لما ببلشوا أنت كحلا dahabshiil caalamka meel kastoo ay joogaan gaar ahaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa ay xiriir doona xarumaha uu ku leeyahay dahabshiil caalamka oo ay ka tirsan doonaan dahabka
barnaamijkan waanu soo gabagabaynaynaa aada iyo aad ayaad umahadsan tahay muuse faarax jaamac oo kamid ah guddiga guud maamulka guud ee xarunta dalka Denmark ee Copenhagen. aada baad mahadsantahay Sidiiq. aada iyo aad baan idin salaamayaa sidaad arkaysaan hadda waxaan kasoo baxnay muuse halkan waxa aan isagana kelmadiisa ka salaamaya udinayaa cali warsame. asalaamullahi calaykum. aada iyo aad baan walaalkuu salaamayaa aada iyo aad baan ugu faraxsanahay kelmadaha aan weydiiyey muuse. haddana waxaan usoo galay cali oo kamid isaguna maamulka guud mas-uuliyiinta xarunta. kelmadaada aan ku weydiinaya cala waxa weeye maasha allah barnaamijyada aad kusoo kordhiseen iyo activity-gina dahabshiil Denmark xarunta guud idinka oo fadhiya ah maamulkii guud iyo mas-uuliyiintii kusoo dhawow bahda mediaha waxsoo sheeg warbaahinta waxsoo sheegayso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديق الفرح صاحبكي واد mahadsan tahay garanaysaa booqashada aad maanta lagu soo booqatay xafiiska xarunta Copenhagen ee dahabshiil Denmark. waxa weeyaan waa aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay soo dhaweynta aad igu soo dhaweysay wixii su'aal aad weydiinayso insha Allah. maxaa ugu baaqaysan bulshooyinka iyo macaamiisha dahabshiil Denmark iyadoo hadda kolley aan u malaynayo inuu jiro system cusub oo yidhaahdo iidahab maxaa ku gubaabinaysaan macaamiishina? macaamiishayda waxaan ku gubaabinaynaa insha Allah inay ammaanadooda iyo magaranaysaa lacagahooda ay ku aaminaan oo dhigtaan dahabshiil ayna ku dirsadaan hadday tahay iidahabka iyo hadday tahay dhinaca kale ee magaranaysaa akoomada sida magaranaysaa loogu ilaalinayo loogu magaranaysaa waardiyeynayo ama sida aad iyo aad loo siinayo muhiimad aad iyo aad u muhiima oo magaranaysaa special in waxooda loo xafido oo loo ilaaliyo. koontooyinkana waa furtaan dadka? koontooyinkana waa u furnaa. okay, marka qofku wuxuu ka furan karaa meeshuu doono ayuu ka qaadan karaa lacagtiisa? meeshuu doono ka qaadanayaa waxa weeye wuxuu dhiibanayaa akoon nambarkiisa iyo sharcigiisa markaasoo dee meel allaale meesha adduunka ka jooga dahabshiil uu ku leeyahay xarun ama branch uu ku leeyahay uu ku helayaa lacagtiisa sida ugu dhaqsaaqo. haddii ilaahay ka dhigo waxaan filayaa dad fara badan oo lacagtii hagbadaha qaatay guryaha u taallaa in ay ku shuban doonaan kana furan doonaan koontooyin haddii allaha uu diray ogolaado. biidnillahi kariim waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay kusoo dhawaada waan idiin diraynaa si fiican waan idinkala shaqaynaynaa iidahabkana ogaada insha allah biidnillahi kariim. aada iyo aad baad umahadsan tahay cali warsame oo kamid ah maamulka iyo madaxa sare ee xarunta Denmark ee dahabshiil. anagoo ah bahda waxsoo sheeg news oo soo booqday maanta xarunta guud ay ku leeyihiin magaalada Copenhagen dahabshiil Denmark oo ku taala Frederiksborg number 48 ama 48 waxa aan leeyahay wax xidhiidha sida ay sheegeen iidahabka iyo barnaamijyada koontooyinka laga furayo iyo dirida lacagaha dahabshiil Denmark iyo xarunta guud oo ku taala magaalada Copenhagen Frederiksborg 48. انتهينا برنامج كنا كل دون وحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.